إنا لله وإنا إليه راجعون daawadayaal dhacdo argagax badan ayaa xalay toor dhacday oo ka dhacday duleedka degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe maanta Soomaali waxay maraysaa in ciidankii dawladda federaalka Soomaaliyeed aanu qabiil loola baxo oo aana qabiil loo laayo sawirkaas eeg tiri adigu 1 2 3 4 5 6 7 toddobada wiil ee dhalinyarada oo waliba saraakiil ay ku jirto fasax ayay ka soo qaateen saldhigyadii ciidanka ay ka tirsanaayeen iyo taliyaashii xukumay waxay fasax uga soo qaateen inay caruurtooda u tagaan balse toddobadoodiiba ma aysan soo gaadhin oo dhaxda waxaa u galay maleeshiyaad beeleed ku hayb waliba madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud toddobadoodiiba intii waliba la qabtay oo waliba waxa weeye tuutahoodii xarig looga dhigay oo gadaal loo wada xiray tuutihii qarankii qabeen ba xarig looga dhigay ayaa haddana la isku soo sawiray iyadoo la laynayo dhag muuqaal baa laga duubtay toddobadoodiiba waa la dilay haddaba waxaan dul istaagi doonaa maleeshiyaadkaas sababta ka dambeysay ee ay u dileen halka ay ku dileen iyo waliba ciidankaas beesha ay ka soo jeedaan iyo arinta u taala Xasan Sheekh Maxamuud iyo ceebtiya fadeexada maanta u taala ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale dul istaagi doonaa wadada maanta bilaabatay ee waliba beeshii madaxweynuhu ay bilaabeen iyo arinta ka dhalan doonta fitinta ay maanta bilaabatay saamaynta ciidankeena ay ku yeelan doonto iyo saamaynta ay dawladnimada Soomaaliyeed ku yeelan doonto ayaan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga ha loo soo duceeyo dhalinyaradaasi ha loo soo duceeyo eheladii ay ka tageen sabir iyo iimaan Ilaahay uu ka siiyo soo dhawaada aynu ku bilownay toddobada dhalinyarada waxa ay ka tirsanaayeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed bay ka tirsanaayeen waxay ka soo fasax qaateen saldhigyadii ay ku sugnaayeen waxay u socdeen eheladooda oo muddo badan ay ka maqnaayeen waxa sugayay reerkoodii haweenkoodii caruurtoodii walaaladood aabahood hooyadood ayaa sugayay waxay ku socdeen degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ama dhahnay gobolka Hiiraan ayay ku socdeen waxay ka soo fasax qaateen furimo ay muddo badan ku jireen waxay ka soo badbaadeen dagaallo ay la galeen khawaarijta oo muddo badan ay ku jireen waxay u taagnaayeen badbaadinta ummadda Soomaaliyeed waxay qabeen astaantii ummadda Soomaaliyeed ayay qabeen balse caawa waa meydbari ama aan dhahnay maanta waxa weeye waa meydbari oo xalay ayaa gacan ka xaq daran maleeshiyaad beeleed ayaa dilay aysan filaynin iyagu ma aysan ahayn maleeshiyaad beeleed waxay ahaayeen ciidan qaran waxay qabeen astaantii qaranka waxay wateen calaamad tusinaysa inay ciidan qaran ay yihiin balse maleeshiyaad ayaan intaas oo dhanba aan ogeyn ayaa wadada u galay waxaa lagu dilay duleedka degmada Ceel Baraf waxay ku socdeen gobolka Hiiraan waa ciidan qaran waa askar qaran ma aha maleeshiyaad intii waliba la qabtay ayaa la soo bandhigay iyagoo gadaal u wada xidhan oo waxa weeye diriiskoodii haddana xarig looga dhigo lagu xidhay haddana waxay soo bandhigeen iyagoo madaxay ka wada toogteen oo meyd ah dhammaantood isku meel ayaa la dhigay isku hayb ayay ahaayeen oo isku jufaa waxa ay ahaayeen toddobadoodaba beesha xawa beelweynta xawaadle ayay ahaayeen toddobadoodaba beelweynta xawaadle ayaa dilay abgaal baa dilay wadanka yaa hogaaminaya abgaal baa hogaaminaya wax lay waayo ee falkaas wuxuushnimada ku dhaqaaqay abgaal weeye waxaan dhahnaa sidee Soomaaliya ayna aaminaysaa abgaalow sidee layna aaminayaa sidee hoggaankiina loo aaminayaa sidee dawladda uga dhigaysaan dawladda uga dhacinaysaan hadaba jiri tihiin oo wiilashiini jiri ay yihiin oo waxa weeye burcad ay yihiin oo argagixiso fal ka waliba ay sameynayaan oo ciidankii qaranka intay wada u galeen ay aana qabiil u laynayaan war sidee layna aaminayaa sidee doo xukunkiina loo aaminayaa sidee ummadda Soomaaliyeed uga dhacinaysaan maanta dawlad baan nahay kama dhacin kartaan suurtagal ma maanta run ahaantii waa maalin mugdi ah weeye mugdi ummadda Soomaaliyeed oo dhan mugdi bawta toddoba wiil in aana qabiil war maxaa ka galay iyaga aana qabiil reerkooda iyo dadkooda markii la leynayay
وحوي قدر الإسكواهي يو عيدا قرن بيهاين وحقيقة دقالمين waxay ka soo dagaalameen gobolka Jubbada Dhexe waxa Shabeellada Dhexe oo yaa daga abgaal baa daga waxay ka soo dagaalameen galgudud oo yaa daga waxa daga abgaal iyo habargidir baa daga oo aan dhahnay galgudud aan dhahnay gobolada dhexe sida galgudud mudug ayay ka dagaalamayeen dhuusamareeb dusheeda ka dagaalamayeen oo khawaarij ka xoreynayeen war ma qabiil bay haayeen qabiil ma aysan ahayn ciidan qaran bay haayeen maxaa loo leeyahay maanta wadadaas abgaal ay jeexeen ninka abgaal ciidanka ku jira ee beledweyne dusheeda jooga ama baya bakool jooga ama gobolka gada jooga sidee naftiisa ku aaminaya oo qarannimo isku aaminaya ilaa wada xun baad jeexdeen waa ayaan daro inteeda leeg oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay runaantii markaan muuqaalkaasi arkay oo dhalinyaradaas oo meel lagu laaynayo meel fadhiya oo muuqaal waliba la iskaga duubaya aan arko gadaal u wada xidhan oo haddana meydadkii ay soo bandhigeen iyagoo madaxa waxa la wada fujiyay oo la wada toogtay waan gariiray waan isgaran waayay meelaan joogaan isgaran waayay maanta xasan sheekh maxamuud oo madaxweynihii qaranka Soomaaliyeed hadda mandate-ka haystay iyo abgaal warba u yaala waliba taliya shoota away shoota warba u yaala ninka gudoomiyaha darajada koowaad ee maxkamadda warba isagana u yaala madaxda abgaal warba u yaala nimanka dhulka hoostooda ma gelin argagaxisan ma aha oo argagaxisadii rag la shaqeynaya ma aha waa maleeshiyaad beeleed la yaqaana meeshay joogaan halka ay ku sugan yihiin warba u yaala xujo ayaa luqunta u suran haddii xasan sheekh maxamuud iyo shuute ay keeni waayaan raggaas oo ummadda Soomaaliyeed ay soo hor istaajin waayaan ogsoonaada Soomaaliyeed mar dambe igama maqlaysaan dawlad federaal iyo hadalkeeda inta xasan uu joogo mar dambe xasan baa madaxweyne ama xasan baa waxa way dawlad federaal igama maqlaysaan malihi xasan baa amray waa la iska garan karaa been sheegi mayno ma doonayno inaan waxaan jirin sheegno laakiin hawl baa u taala maxay Soomaali hore ku maamahday nafti teeda keento ayaa tu walaal ku darta ninka madaxweynaha waxaa la rabaa reerkooda inuu horta jufada ugu hooseysa ilaa iyo soo gaad jufada ugu sareysa ka soo qaad waa abgaal Soomaa xasan intaan hawiye la gaarin abgaal inuu horta wax ka keeno oo dawladnimada ogolaysiiyo oo xukunkiisa ogolaysiiyo oo inuu madaxweyne yahay ogolaysiiyo oo nidaamku shuruuciyo dalku ku dhaqayo ogolaysiiyo hadduu abgaal ogolaysiin waayo inta ku dhaqmaysaa waayo waa inay reerkiina ka dhaadhiciso waa inay reerkiina ku wataan waa inay reerkiina horta adigoo waxa weeye aad kasoo jufadaad ka soo jeedid ilaa waa jufa yar abgaal markii Soomaali la dhehe waa inay horta ogolaadaan inaad madaxweyne tahay oo systemkaadu uu sax yahay hadday ogolaan waayaan oo ay wiilashaadiiba taagan yihiin wadada qaadic dariiq yihiin oo ciidankii qaranka laynayaan oo kii beeleedka beelaha laynayaan odayaashii dhaqanka laynayaan oo culimadiinka laynayaan oo mudantii bulshada laynayaan oo qori meel tageen isbaara meel u taalo ya waxaad adka dhaadhicinaysa waayo marka yaa xukunkaada u hoggaansamay wax u hoggaansamaya ma jiro dhacdada waa dhacdo argagax leh sabir iyo iimaan Allah ka siiyay eedadii dhalinyarada ay ka tageen iyagana gacan ka xaq daran baad siiyay jannatul firdaws Allah geeyo ilaahay qabriga ha waasiciyo toodii bay waxa weeye kulay ma aysan dhaafeen gacantaas unbuna waxa weeye Allah qoray baan dhihi karnaa oo lagu sababay ilaahay jannatul firdaws ha geeyo kuwaas qaadicu dariiqe wadada taagana ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka soo qabto waayaan daro waa musiibo inteeda leeg waa wax run ahaantii laga xumaado waa wax qalbiga bini aadamku u diido dhalinyaro Soomaaliyeed oo astaan qaran wadata in qabiil aanadi loo laayo oo leeyaati reehbel waxba naga gelina sargaal qaranta inaad ahayd waa ninka adiga ku adeegayay waa ninkii madaxweynaha waxa weeye bishaar ka qaadanay waa ninkii waxa weeye astaantii qaranka ku watay maanta hawsha ay ku socoto Soomaaliya markii la qiimeeyo 91 wax ma dhaanta la dhigi karaa wax ma dhaanto xasan laba mid baa looga fadhiyaa in qaadicu dariiqinta reerkooda kow ka yihiin inuu meesha ka qaado ilaa meesha maanta qabaa'iladu ay isku laynayaan waxa islaynaya waa hawiye qabaa'il kale oo islaynaya ma jiro waxa laynaya ee qaadicu dariiqa ee wadada taagan waa hawiye qabaa'il kale oo wada taagan ma jiro waxa looga fadhiyaa in hawiye intuu isku noqdo ama xukunka u wareejiyo
ama dowladnimadii yarayd ee la soo yegyeelayay god bay ku sii dhacaysaaye ay loo istaagay sidii loo badbaadin lahaa. wardaarood iyo soomaalida kale iyagu wax ma laynayaan, dad ma laynayaan. waa laga yaabaa macangag siyaasad xun oo axmed madoobe oo kaleeta inuu oo dowladdii federaalkiiga ka soo horjeeda inuu jiro, laakiin qabaa'il intuu meel istaaga qabaa'il kale ku duulaya, ama dhalinyaro intay is abaabushay meel taagan oo qaadcu dariiqiina oo ummadii qalqalaysa oo ciidankii qaranka laynayso qalqalaysa ma jiro. waxa dhibaatada geysanaya waa hawiye. war xishooda, war ilaahay ka cabsada.